المختار ولد محمد ولد داده waxa uu u dhashay dalka Mauritania wuxuuna ahaa madaxweynihii ugu horeeyay dalka Mauritania wuxuuna dhashay 1924 wuxuuna geeriyooday Oktoobar 14keedii 2003 waa siyaasi reer Mauritania ah iyo garyaqaan loo tixgeliyay in uu yahay dhisihii gobolka Mauritania waxa uu madaxnimada dalka qabtay kadib Mauritania markay xurnimada ka qaadatay gumaysigii Faransiiska 1960 المختار waxa uu ku dhashay Bodlamot oo kamid ah gobolada ugu muhiimsan ee gobolka Tarasa oo ku taala meel qiyaastii 150 kiiloomitir bari ka xigta caasimadda Mauritania ee Nouakchott waxa uu wax ku bartay dugsiyada hoose ee Mauritania kadib waxa uu u safray dalka Faransiiska waxa uu wax ku bartay macahad sare oo gaar loo leeyahay halkaas uu ka qaatay dibloomada dugsiga sare waxa uu sii watay waxbarashadiisa sharciga ee kulliyadda Paris ilaa uu ka helay shahaado sharaf sidaa darteed waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee reer Mauritania ah ee dalkiisa dib ugu soo noqda isagoo haysta shahaado jaamacadeed dhanka siyaasadda waxa uu ku biiray ururka horumarinta ee Mauritania ee la aasaasay 1948 xisbigan dhexdhexaadka ah waxaa loo tixgeliyay midka ugu dhow maamulka Faransiiska المختار waxaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha fulinta 1958 sanadkii 1959 المختار wuxuu aasaasay xisbi cusub oo loo yaqaan xisbiga isku soo baxa Mauritania waxaana loo magacaabay ra'iisul wasaare dawlad ka hoos jirtay gumaysiga Faransiiska wuxuuna aasaasay dawladii ugu horeysay ee Mauritania wuxuuna dhisay magaalada caasimadda ah ee Nouakchott ee 1957 المختار waxaa lagu gartaa fudeed iyo ka guurista u muuqashada kaligiitalanimo waxa uu ku noolaa madaxweyne ahaan guri fudud oo aan ka badnayn 3 qol المختار wuxuu caan ku ahaa diblomaasiyad aamusnaan wax ku ool ah gaar ahaan dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika halkaas uu madax ka ahaa ururka midnimada Afrika 1971 المختار wax saameyn ah kuma yeelan markii xasankii labaad uu ku wargeliyay in uu qorsheynayo afgambi isaga ka dhan ah 6 bilood ka hor afgambiga sidoo kale kuma ogeysiinin madaxweynihiisa Iir Mabutu bishii Febraayo 1978 sidaa darteed wuxuu uga tagay sidii caadiga ahayd ilaa المختار isaga la qabto المختار waxaa xukunka laga tuuray July 10keedii 1978 kadibna waxaa lagu xiray xabsi waxa uu xabsiga ku qaatay muddo 14 bilood ah balse nasiib wanaag waa la sii daayay mowduucina halkaas ayuu nagu egyahay assalaamu calaykum